gardaraysigoodiyo inaan gubo naftooda ayaan tala ku gooste gardaraysigoodiyo inaan gubo naftooda ayaan tala ku gooste sigana mogori anagana bushale gashandigeliyo hadige kianai didi mayno derida sigana mogori anagana bushale waxay horaantii sanadkii 2007 marka qaramada midoobay ay ansixiyeen qaraar tirsigiisu yahay 2124 oo lagu ansixiyay in ciidamo ka socda midowga Afrika ay yimaadaan gudaha Soomaaliya kuwaas oo ah nabad ilaalin waxa sidoo kale lagu ansixiyay tirada ciidamada imaanaya Soomaaliya oo gaaraya 22586 askari oo military ah oo ay dheer tahay 540 ciidamo booliis oo tababaran waxaan ugu horeyntii qaatay 6 wadan oo safka hore ah ee Afrikaana inay soo diraan ciidamada AMISOM ka socda waxaana kamid ahaa Uganda, Burundi, Kenya, Djibouti iyo Sierra Leone iyo Ethiopia waxa loo kala qeybiyay 6 wadan ee ogolaaday ciidamadoodu inay yimaadaan Soomaaliya kuwaas oo ay la socdaan ciidamada militariga ee dawladda Soomaaliya ayaa waxa loo ogolaaday inay ka howlgalaan 6 qaybood 6daas qaybood oo loo kala qeybiyay gobolada Koonfurta iyo gobolada Dhexe waxa ugu horeyntii kamid ahaa qaybta koobaad ama aaga koobaad oo ay ka howlgaleen ciidamada Uganda oo ahaa gobolka Banaadir iyo Shabeellada Hoose sidoo kale waxa jira aaga labaad oo dalka Kenya uu ka howlgalay oo ah gobolka Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe waxa sidoo kale jira labada gobol ee aaga saddexaad loo yaqaan oo ah Bay, Bakool iyo waliba gobolka Gedo oo raacsan waxaana ka howlgalay ciidamada ka socda dalka Ethiopia oo ay la socdaan ciidamada Soomaaliya ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed sidoo kale waxa jira aaga afraad oo ka howlgalayaan ciidamada Djibouti iyo kuwa Ethiopia oo isku darsan oo ay garab socdaan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana ay ahaayeen aaga afraad ee gobolka Hiiraan sidoo kale waxa jira ciidamada Sierra Leone oo iyagana ka howlgalay magaalada Dekada ee Kismaayo iyo nawaaxigeeda waxa markan ka bilaabaynaa aaga afraad oo gobolka Hiiraan iyo Galgaduud ah gobolka Hiiraan ayaynu ku sii horeynaynaa gorintii gobolka Hiiraan waxa ku sugan ciidamada Hiil Walaal iyo ciidamada Ethiopia waxana ay garab siinayaan ciidamada militariga ee Soomaaliya marka hore waxaan ku hormareynaa aaga afraad oo gobolka Hiiraan iyo Galgaduud ah waxa marka halka ku sugan ciidamada Hiil Walaal oo ka socda dalka Djibouti iyo kuwa Ethiopia sidoo kale waxa ciidamadaasi ay garab siinayaan oo hormuud ah ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed waxa gobolka Hiiraan caasimad u ah magaalada Beledweyne waxana markaas ciidamadu ay ka soo dhaqaaqeen horaantii toddobaadyadii la soo dhaafay oo ah talaabadii ugu horeysay ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed ee u qaadeen xagga degmooyinka iyo gobolada iyo kuwa AMISOM markii ugu horeysay dhaqaaq noocaas oo kale ay sameeyaan gobolka Hiiraan waxaan ka soo qaadaynaa marka magaalada Beledweyne oo caasimad u ah gobolka Hiiraan ayaa waxa ciidamadaasi dhaqaaq ugu horeeyay ay soo gaareen tuulada Buqa Qable waxana markaas ay ku sii socdeen ilaa magaalada degmada Puulaburde oo ah meel muhiim u ah waxana lagu wadaa inay sii socdaan ilaa iyo gobolka Shabeellada meesha ay ka sii galaan ee Cadale la isugu tago dhinaca kale waxa ciidamada Hiil Walaal iyo ciidamada Ethiopia iyo kuwa Soomaalida militariga xooga dalka Soomaaliyeed ayagoo soo wada la wada dhinaca kale inay Moqokori iyo Maxaas u sii dhaqaaqi doonaan ilaa intay ka gaarayaan gobolka Galgaduud dhinaciisa kale oo halkaas ay ku sugan yihiin ama kale oo dheeraad oo ka socda dalka Ethiopia dhinaca kale waxaynu tageynaa gobolka Galgaduud oo ay halkaas ku joogaan ciidamo huwana oo iskaashanaya ka socda ciidamada AMISOM oo ay hor socdaan ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed isla markaasna ay la socdaan ciidamada Ethiopia waxa weeyaan caasimada gobolka Galgaduud oo ah magaalada Dhuusamareeb waxa ka soo dhaqaaqi doona oo soo aadi doona dhinaca xeebta ama deexda dhinaceeda markii la soo aado magaalada muhiimka ah oo
ay degan yihiin ciidamada al-shabaab dhaqaaqaasi wuxuu ku socon doonaa magaalada ceelbuur sidaa arkaysaan dabadeetana marka ceelbuur laga tago ilaa iyo mareeg ayay sii socon doontaan dhul xeebeedka dhexda ah halkaasoo laga yaabo meesha ugu dambeysa inay sii dhaqaaqi doonaan ciidamadu ilaa ay ka gaaraan magaalada Xaradheere iyo waliba magaalada Hobyo oo ah meelaha muhiimka la doonayo inay tagaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay gacanta ku dhigaan bilaha soo socda inta aan la gaarin bilowga waqtiga roobaadka dhinaca kale waxaanu eegaynaa aaga koobaad amaba qaybta koobaad oo ay joogaan ciidamada Uganda iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa tirada badan leh waxa iyaguna ay sameeyeen dhaqaaq ku aadan aagaas oo hoos imaanaya labada gobol Banaadir iyo Shabeellada Hoose waxa xarun weyn u ah amaba xarunta ama caasimada u ah magaalada Marka dhaqaaqa ay sameeyeen ciidamada Uganda iyo kuwa dawladda oo isgarabsanaya marka ay dhaqaaqeen sida aad la socotaan waxay tageen magaalada Marka geeskeeda hoose xagga xeebta markii laga aado dhulka webiga waxay tageen magaalada Qoryooley oo aad moodo inay tahay magaalo muhiim u ah dawladda Soomaaliya isla markaana ah meel ku haboon in ay ciidamadu saldhig ka sameystaan si loo kaabiyo ciidamada Kenya ee ka imaanaya dhinaca kale sidoo kalena ciidamada Ethiopia ayaa wax ka soo socdaan baydhaba iyo labada gobol ee Bay Bakool oo ah aaga shanaad dhinaca kale waxaanu jecelnahay inaanu eegno xagga koonfurta oo ah aaga ama qaybta labaad waxa markaas qaybta labaad mas'uulka ah oo la socda ciidamada dawladda Soomaaliyeed Kenya iyo Sierra Leone waxa weeyaan jubbada hoose iyo jubbada dhexe waxa iyaguna ay dhaqaaq ka soo wadaan dhinaca kale si ay ku soo gaaraan degmooyinka Jilib ilaa iyo Jamaame isla markaana ay ku soo fidaan ilaa Shabeellada ee lagu wado inay habka meesha ugu dambayso la isugu imaan doonaan noqon doonto sida arkaysaan magaalada Baraawe dhinaca kale waxaanu eegaynaa labada gobol oo muhiimka oo koonfurta ugu muhiimsan oo loo yaqaan aaga shanaad waa Bay iyo Bakool waxa ka howlgada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo garabsanaya ciidamada Ethiopia waxa ka jira iyaguna dhaqdhaqaaq todobaadyadii la soo dhaafay sida aad la socotaan magaalada Waajid iyo Xudur ayaa gacanta waxa ku haya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Ethiopia oo ka socda Amisom sidoo kale waxa lagu wadaa in dhaqdhaqaaqa labaad uu noqdo magaalada muhiimka ah ee Baardheere ilaa iyo Buulo Xaawo halka loo yaqaan sidoo kale waxay ciidamada sii socon doonaan labada magaalo oo muhiimka ah aan isleeyahay waxay soo gaari doonaan dhinaca kale waxa weeyaan Saakow iyo Bu'aale oo iyaguna balantu ay tahay in la isugu yimaado ilaa dhamaadka magaalada Jilib oo aad arkaysaan dhaqdhaqaaqaas oo dhan waxa laga yaabaa dhinaca kale markii laga yimaado laftirkeeda oo xagga Baraawe ah ayaa iyadana lagu wadaa in ay markaasi isugu yimaadaan ciidamada jooga Banaadir iyo Shabeellada Dhexe magaalada Baraawe ciidamada kuwanta ee ka soo baxaya dhinaca gobolka Bay iyo Bakool marka ay soo maraan dhinaca Saakow iyo Bu'aale waxa ay imaan doonaan oo balantu ay tahay magaalada Jilib dhinaca kalena waxa ka imaan doona ciidamada Burundi oo waxa ka imaan doona ciidamada Uganda oo iyaguna ka soo socda dhinaca gobolka Banaadir iyo Shabeellada Dhexe oo soo mari doona ilaa iyo Baraawe waxaana lagu bilansan yahay magaalada Baraawe oo noqon doonto xudunta ugu adag ee ciidamadu dhigi doonaan salkooda